Soomaaliya haddii aad xishmad iyo mataqaanaa wax walba aad ii haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen inaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa waxaad ii banaan baxaan ii istaagaan atadaay waxaa ii soo wartay oo la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanayo inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqaayo mana ka gabanayo xabad haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabad igu tiriyo waxaan u dhibanayaa xaqa waxaan u dhibanayaa cadaaladda. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب شرفت له ومركلة إيه مقال عصب برتن هذا قد هنسان وبرتني كل مجرنا ولا كامل يبرو آد يد مهسنتي ولا ليال سودو هذا شعور تيدو آد وكعسنتهاي وحن دريمية حنون أيان قلبي كدريمية نين كان دلني يردا ما أنت أيان كهاللي رياكشن أيان كبيحية فرانقين أيان كسمية isaga oo leh xaqa ayaan ku dhimanayaa isagoo leh ayaan falanqayn ka sameeyay warkiisa ayaan maanta idin la wadaagay isagoo oo wareysanaya Sharmaboy iyo ninka la yiraahdo Deeq Darajo isla caawana waxa dhibaatada idin muuqata loogu geystay Nairobi dhexdeeda waxa saa ugu geystay nimankii daciifiinta ahaa oo danyarta ka adka nimankii dhalinyarada dulaysan jiray nimankii ka adka fanaaniinta iyo youtuberada iyo waliba tiktok leyda nimankii la adeegsan jiray oo dadka maangaabka ah ay adeegsan jireen ayaa saa ugu galay inaan hadalka idinku sii dheereeyo ma doonaye bal walaalkeen aynu dhageysano hadalkiisa حيد الله الله ونزار دا وعمل محمامي يحيى أصحابي waxaa igu dhacday aragga la ii dilay waxaa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaqa ka hadlay oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharmaboy iyo Deeq Darajo loo geystay ajiib waxaa dhacday maanta markay saacad bareysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaas ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal Shukbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlaynaa Shukbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar mustii aqoon abu lahaa waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa in brother ana oo kulul baana kala hadla aragga Sharmaboy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari igishtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna ila wad waxay aniga baabuurka ku sii jiro waxaa liigu qarwacay in la yiraahdo Axmed Shiil عجيب nimanka sidaa u gelaya oo saa ula dhaqmaya waa kuwa isaga hayb la wadaaga ma aha kuwa ka dheer Kenyaati askar ama aha laakiin waa niman askar ah oo beeshiisa away kaliya waxa lagu haystaa arintii uu ka hadlay Sharmaboy iyo Deeq Darajo markii lagu wacay waxay yiraahdeen intay joogtaa waa ku iwaaraya أنا waxaa isiri hadii aan kabtid ama hadii aan cabsi aan isgelisid waxa iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhiga qof dambiile maadaama aad dambi lahayd because Axmed Shiil wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doonada wato iyo rag biskoolada wato aniga intaas kaba saabsani mar ku jiri sida la sheegay waa sida la sheegay sida hadda muuqato oo cad oo banaanka taalmaahe sida la sheegay waxa weeye in uu la dagaalamo dadkii loo aqoon jiray super power ama ahaa dhalinyaradii dhibaatada ka geysan jirtay isli waa sida la sheego laakiin sidan maaha ninkan wuxuu isku tuhmayay kow inay isaga la hayb yihiin oo aysan waxba ku sameeynin labo wuxuu tuhun ka qabay inuusan tooreysidan wax xuba sidan bastoolina sidan dhibaatana uusan wali geysan sida daraadeed cabsi uu ka baqayay iyo dhibaato inay u geystaan uu ka cabsanayayba meesha muu soo dhigan tartiib ayuu ugu tagay la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha gaaribeen la dhaho jaamacadda dalxayaad dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin laygu qabto mid ka mid ah wejiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u geegsan waayay aan gacan u qaaday
oon isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay tooriyaa liila soo baxay toori markii liila soo baxay adiga markii waxaan waa istaagay oo waan isdejiyey waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameynaayo waxaa bilaabay inaan iska dhiciyo sideedii gudriba waxaa jiri baraad waa dhibatay intaa okay ninkaani xalay ayuu wuxuu ballan qaaday xaqa inuu ku dhimanayo ninkan askar baa haysa iyo waxan maaha muxuu u dagaalamay dad badan baa laga yaabaa waliba dadka qurbaha jooga waxay isleeyihiin askar hadday hayso maxaa maaha askar waa gaangiistaro waa niman Moryana waa niman dadka dila waa niman caruurta dhiigooda ku shaqaysta in ay dilaan dadkooda kuwaas ayaa hortaagan magac askareedna wata kuna shaabadaysan in ay askar yihiin mar walba waxa dhici karta dhalinyarada Soomaaliyeed ama dhacdaba in lagu shaabadeeyo wuxuu ahaa kuwii cidina laba calin aysan isweydiin laakiin ninkani waa nin kalsooni qaba naftiisana ku kalsoon dhimani ka hore geesnimo u dhimo gacan ayaan qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyey maadaama la iga badnaa waa laga adkaa waxaa noqday gees garab waayey oo mataqaanaayo meel iska saari waayey kadib waxaa dhacday in oo mataqaanaa baabuurka markay jirtaan ayagoo hanjabaad iyo wax walba wadaan iyo ribaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yidhahdo cadaan model iyo inta majeerteenaaba dhan waxaa balal nagu ah inaa meel saaro oona magaalkiisa nabad ku noolaanin okay ninkan sababta loo dilayay iyo ulajeedka loo dilayay waa hadalkii uu ka hadlay arrintii uu xalay ka hadlayay waraysigii uu waraystay deeq darajo aynu soo daynay oo intiina laakaha media ku xiran aad daawateen cadnaan wuxuu waraystay ninkani deeq darajo iyo wuxuu waraystay Sharma Boy laakiin fariinta loo dilayay macnaha fariinta la gudbinayay waxa laga dhigayaa waji qabiilkan uu ku dhawaaqayo oo uu ka sheekaynayo ninkani waa message-kii loo soo dhiibay ama waa fariintii loo soo dhiibay oo gudbinayay dad badan oo idin kamid ah ayaa laga yaabaa inaad tiraahdaan qabiil laakiin inta aadan u qaadan in qabiil tahay waxaad u qaadataa ninka la garaacayo oo saa loo gelayo oo caawa geeri iyo nolol dhexdood ku sugani waa ayo ka dilayaasa waa ayo hadday qabwayaalad wax tarayso deeq darajo ninka dilayay oo rabay inuu dilo oo ku fakaraya garow inuu ku dhex dilo oo ku fakaraya inuu halkan ku dhex dilo Nairobi ku dhex dilo waa ayo ninka lacagta ku bixiyay waa ayo gabadhii iyadana aynu soo daynay oo hadlaysay oo kaajal yuu ahaa ninka leh muuqaal baan ka duubaya waa ayo waa isku qabiil macnaha danta ay leeyihiin marka ay rabaan Mooryaantu inay awr kacsadaan ayay waxay ka sheekeeyaan nadaam qabiil ama shaati qabiil bay kashadaan marka ninkan hadalka uu ka sheekaynayo waa fariin la soo dhexmariyay markii la tumayay baa hadalkaas waxa looga dhigayay marmarsiyo laakiin wax jira ma ahayn waxa lagu dilay waraysiga uu waraystay iyo hadalka see u sheegtay warka sidee u gudbisay fariinta see u gudbisay sidee baad waxa lagu dilay wax kale ma aha waxa waraysigii kamid ahaa xaqiiqadan sheegayaa buu yiri markaan saab guriga usoo waxaan arkay in lagala degay gaari in lala koray oo uu wato Axmed Rashiid iyo nimanka ay wataan oo gaari la galeen oo basoolad lagu wada baan arkay kelmadaas buu u dhimanayaa ninkaasi ama u dhiman gaaray nooca aad aragteena loo galay waxay yiraahdeen adigoo la bajartanayn waxaad bajarteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad daba dhilif bajarteen daalim kasta dad awooyaasheeda xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan wixii ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo runtii waa ka xumahay magac qabiil macnaha wiilkan wixii lagu sameeyay macnaha wuxuu ka sheekaynayaa oo muuqaalkan macnaha uu kaga sheekaynayaa dhibaatadii qabsatay way ma ahan isagu fariin qabiil inuu gudbinayo please waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay fahmaan qofka dhaalimka ah qabiil ma leh qofka dhaalimka ah oo wax dulminaya qabiil ma leh maadaama ay la haybihiin waxa cadayn kuugu noqon kartaa haddii qabiil wax tarayo iyagoo la hayba maxay saa ugu galayaan
macnaa caddayn waxay u tahay taasi qabiil inaysan sheekadani ahayn laakiin qadiyad kale tahay lacag inay tahay in ay tahay see magacayga u sheegi kartaa see anigu waxaan sameeyey u gudbin kartaa inuusan kala dhashay aqoon tala dhalatay inuusan aqoon waxaan kaloo ogahay oo idinku darayaa weliba rag youtube-ka caanka ah iyo dad baraha bulshada ku jira in loo wada hanjabay in la yidhi ma hadli kartaan shib waxaan ka magacaabayaa ck oo shib ah aashunku adan aan hadli karin rag badan oo ka mid a oo nairobi kuwa jooga iyo kuwo kale oo jooga daafaha caalamka mid walba noocii lagu geli karo 200 oo qof oo kala nooca baa ku soo wacaysa arrintan saa maaha arrintan waxa isaga kaa dhigayaan dadkii kulli waxa la isaga kaa dhigayaa mid adiga sama kuu sheegaya war qofka noocaa samaynaya oo walaalkiisa u gelaya ma teelo adiga kuu dhiganaya teelo miyuu kuu dhiganaya adiga may wax teelo iyo asxaan macnaha ma kuu falaya adiga may adiga ma kuu abaalgudaya may adiga wax ma ku taraya may nimankani halkaas ay yaqaanaan hungurigooda iyo jeebkooda ka shaqeeyaan waxa ay wax ku dilaan ma aha dan ay dawladda Kenya u wadaan maaha macnaha dan ay cid kale u wadaan maaha waa dan naftooda ah iyo jeebkayga halka maxaan cunaa waana waxa Soomaali baabi'iyay koorid baaburkii tay wadeen hajabaad badan ay wadeen waxay yiraahdeen waxa next ah oo kugu xijinayna dhikil yiraahdo cunaan model maadaama uu yahay jirteen marka waxaad halka ka dareemaysaa Adnan model kamu hadlin meel uu baraha bulshada waa nin caan ka ah bulshada Soomaaliyeed caan ka ah meel uu kaga hadlay ma jirto laakiin waxaad cadaynaysaa waxay cadaynaysaa in ninkan message la dhex marinayo sheekada in la rabo in nooc kale loo bedelo iyo qaab qabiil xaqiiqaduna taas ma xaqiiqadu waa siday ku bilaabatay oo ahayd ando in ay la hadashay anda calisay in ay la hadashay Maxamed Rashiid in ay Maxamed Rashiid ku tiri waxaad yeeshaa fuli Sharma Boy arintiis inuu u fuliyay haddana Axmed Rashiid ninka la yiraahdaa uu dadka u baabi'inayo dhalinyarada u beegsanayo marba mid ay qayb carar u tahay qayb baa baxsad ah gabadhii xalay la joogtay oo kale xaaladeeda Ilaahay baa gabar kale waxa la sheegayaa waqtiyada soo socda in la soo gelin doono kolba baraha bulshada iyadoo nooc kale ah la kufsaday sidii la doonay laga yeelay haddana la soo dhigay qof kasta oo caan ah waxa loogu hanjabayaana wax kale maaha waa nooca laakiin arinta Adnan model oo inta la og yahay meel la aan kaga hadlin sababta beegsiga keentay waxa weeye barnaamijkan wajiga uu leeyahay in laga bedelo oo waji qabiil loo dhigo si dadka qaybtood bulshada qaybtood ay ugu aragto ninkan message-ka ilaa ninkan uu hadli doonaa waa nin aan baqayn waa nin ay arkeen waa nin aan sina ku aamusayn waa haliyey Soomaaliyeed waa boqolle kaamila aaminsan inuu xaq ku dhinto marka ay arkeen fariinta ay isiraahdeen gudbiyo oo kaliya waxay tahay in ay qaab qabiil xaaladda u gudiyaan isoo warjaan askari liigiyo askari walba liigiyo wuxuu igu sameeyay gacaqaad jug wali ilbaaxay wali feeray kadib waxaa dhacday in la warwareejiyo kadib in la iigeeyo ninkii ahaa Axmed markii la iigeeyey wuxuu yiri wuu ka dhaxay wajigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri aniga raalli kameeyay waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raalli kameeyay wax lagu sameeyay waxay weydiiyay haddii aad raalli ka ahayd waxaa kuu kala faa'iiday mid qalaayo aad iisoo dhaliirtaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ilaahadisid wuxuu yiri waa ka xumaay waxa u maleynaya inay ii keenayeen dhaliirta daalimkan ummadii baaba'shay oo suuqa dhexdiisa dadka ku toogta muslimiinta ah oo dhalinyarada suuqa ku toogan jiray gardarra cad buu horay ugu leen jiray cadayn waxa waa kuwan muxuu kan ku dilayaa muxuu u dhimay muxuu isaga dhigayaa haddana inuu waxba dhimin hooyada ma garanaysaa barnaamijka wuxuu og yahay in ay dib laga yaabo in dib la isaga soo laabto laakiin waxa la yaab leh bulshada Soomaaliyeed oo ku dhaqan Nairobi ma waxay ka baqayaan 10 wiil
maxaa dadka Soomaaliyeed dhiigga ka siibay maxaa dadka Soomaaliyeed aragtidooda ku koobay qabiil maxay wax kasta oo dhaca ugula aadaan qabyaalad maxay uga fikiri waayeen mustaqbalka ubadkooda iyo aayahooda war aabba kasta iyo hooyo kasta oo degan Nairobi miyaysan ka fikirayn ubadkeeda berri inay tani ku soo socoto inay ku dhici doonto miyaysan ka fikirayn waxa la yaab leh culimada Soomaaliyeed oo Nairobi joogta 24 saac waxaad ka hadashaan Muqdisho waxaad ka hadashaan Soomaaliya waxaad ka hadashaan dhibaato ka taagan tan gundihiina taala waayba uga hadli weydeen wiilkan laga wada baqayo idinkuna ma ka baqaysaan cabsidii Ilaahay miyaad ilowdeen maxaa idinka siya sababta aad uga hadli weydeen idinku maxay tahay culimada waaweyn oo joogta Nairobi maxaad uga hadli laadiin sababtu maxay tahay maxay galabsadeen kani maqaatilba ma dadku laaya ma dadku baada mise waa commandiyaal waa wiil microphone sito dadka public barank sameeya dadka hortiisa ama dadka ku qoslisiya ma dad buu dilaa ma dad buu dhacaa ma xoolaha isliyaal qabuqata sabab ba culimadu uga hadlaada aaway sheekh umal aaway sheekh xasan ki isla gariirin jiray laaya umada aaway culimadii meesha joogtay shibili aaway maxaa ku dhacay faarax macallin maxaa ku dhacay arinta Soomaaliya maalin walba u taagan tahay arinta Soomaaliya qadiyada Soomaaliya kaasa tan Nairobi maxaa uga hadli weeyay maxaa uga aamusan tahay ninkan dadka dhameeyay dhalinyarada dadka dhameeyay ninka dhameeyay maxaa uga hadli weeyay tan uu maanta sameeyay maxaa uga hadli weeyay ninka aan ku shaqada iyo shuqulka ku lahayn Nairobi oo la bedelay oo Gaarisa loo bedelay maxaa uga aamusan tahay xildhibaanay leeyihiin xildhibaanadu kama hadli karaan miya wasiiraday leeyihiin kama hadli karaan miya mise waxan waa wax dawladda Kenya ay raali ka tahay oo ninkan loogu talagalay faas lagu garaaco Soomaalida waa soo mareen qayb hore oo Soomaaliya oo saafaas loogu garaaco meeshii ku dameeyeen waa wada ognahay hebel oran mayo laakiin dhamaantii waa wada ogtii ودليرة أو هاجري سوبر باور ودليرة أو أتقالاس إتلالاي كصاحبتي وحالا لالاي أي درت خميل درت هذا وحيه دليرة ما تكجو وهذا حلوك إقبال يتقالا قوة دليرة تازي وحي إيشيكتين أمود حدافة أموداسي أو أهد إليين وقادين إبقال كان أقادي كتريا يعني آهي دبقلي فجرتين ما داما عن كبار فجرتين محصب إيراي أوكي معناها باور بي شيكتين إنا يهين أقادين لكن إساقو إنو يهي دبقلي مارت الريبك أو شيغيو لكن إساقو أقادين لفتكي سوا أقادين إساق علامات محل لوغا ديغي باشو هبل iyadoo daladii lagu wada jiro qabiilka halkii lagu wada jiro ba waxa lagu shaabadayaa Soomaalida dhexdeeda hebel isagu ma taageersana qabiilka hatta qabiilkii buu yahay hebel qabiilku wuxuu rabo ma rabo hebel dawladdu taageersan hebel dawladda ma taageersana waa isla qabiilkii markaasuu kii dulmiga waday wuxuu isaga dhigaa qabiilka inuu isagu qabiilka ka xigo ka kale sidaa daraadeed shaabad baa looga dhigay gabadha aad wax la duurtid reerkaasa waxa calaamada loogaga dhigayaa wax kala maaha waa jahwareerin bulshada Soomaaliyeed aad baan uga xumahay inaan waxyaabahan qabiil ku jirjiro inaan ka hadalno laakiin sababta aan uga hadlaynaa wax kala maaha waxay tahay in ay tahay ulajeedka iyo hadafka laga leeyahay jahwareerin labada nin ee laadarinta ah ee tuugada ah ee isbahaystay ee halka isku bahaystay in ay rabaan inay dabagidiyaan bulshada Soomaaliyeed jilaayo aan muuqaal duubaayo marka waxa dhacday in ay yiraahdeen sharbu boy iyo waxyaabaha ku xisay inay igu soo ogaan ama isha ay dhaan tuuri ayaa wata tuuri ayaa igu dishay dika waxa dhacday kadib inay dhaan tuuri ayaa dadku ku dishay ama tuuri ayaa wata waxay yiraahdeen cadaabada iyo dhalinyarada oo asaga dabaraacsan
haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag malihin waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu idhaho waa ka xumaayay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii la idhaawacay lai jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragka dhaayo iyo dumarka dhaayo sharma boy wuxuu waxaan u samaynayaa views darteeda wuxuu waxaan u samaynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal laakiin wuxuu ka hadlayaa waa boynti sax a weeye oo xanuun badan wuxuu tilmaamayaa malaha dad baa jira yidhi sharma boy views buu raadsanayaa shalay markii uu ooyayey haddii ay taasi run tahay maxaa aniga lay dhaawacay buu yidhi maxaa aniga lay dilayaa sharma boy hadduu been sheegayay ulajeedkiisu waxa weeye sharma boy hadduu been sheegayay aniga tan igu taalla ama beenba waa saas sida saxdahay waa saas been maaha ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed oo caqliga leh oo garashada leh waxaa la gudboon inaad ka dhiidhidaan wiilkan dhallinyarada ah halyeyga ah ibnu xalaalka ah xalaasha ku dhashay oo diyaarka u ah inuu xaqa ku dhinto waxaan ka sugaynaa bulshada soomaaliyeed oo meeshaa ku dhaqan in ay ka dhiidhiyaan wiilkan wuxuu codsan doonaa oo hadalladiisa ka mid noqon doona in uu ku baaqayo in loo mudaaharaado oo dadka soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan anigu waxaan idin leeyahay dadka reer nairobiyow culimadiinna iyo dadka aan culimada ahaynba inta u soo jeensataan waxan inaad hal meel uga soo wada jeensataan oo waxaan iska qabataan wallaahi haddii aydaad ka aamustaan oo ay dhacdo inaad sidaa uga aamusnaataan carruurtiinnay ku dhacaysaa oo idinkay idinku dhacaysaa oo qof xataa ku badbaadaya waa in adeerkaa ma jiro kansaa loo galay waa in adeerkood dhibaatadahay waxaa ii soo wartay oo la iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanayo inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqaayo mana ka gabanayo xabad haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabada igu tiriyo waxaan u dhibanayaa xaqa waxaan u dhibanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoo la hadlid ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aad xishmad iyo mataqaanaaye wax walba aad ii haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa waxaan ii banaan baxaan ii istaagaan laa xawla walaa quwata ilaa billaah wuxuu codsanayaa halyeygaa soomaaliyeed wuxuu codsanayaa oo cod dheer ku leeyahay isagoon ilaahay maahaana cid kale ka baqayn wuxuu codsanayaa garab istaag wuxuu codsanayaa in bulshada reer nairobi ama reer kenya oo soomaalida ahay inay u kacaan oo garab istaag u muujiyaan oo u mudaaharaadaan waa wiilkaa la dulmiyey waxna aan loo geysan waxna aan isagu geysan wax u dhimayuusan jirin wuxuu ka hadlayaa oo ka dardaarmayaa kuwo kale oo aan hadlin oo cidna la hadlin waxna aan samayn in sidaa loo geli doono reer kenya ama gob baad noqon doontaan ka jawaabta baaqa uu dirayo walaalkeen dhibanaha ah oo dhaawiciisu kaa uu muuqda uu yahay oo aan shakigu ku jirin gardarrada iyo dulmigana lagu dilay ama waxaad noqonaysaan gun ka aamusta dhibaatadaas ay arkayaan oo huursata qurunkooda calooshana ku haysata cirib dambeedkooda iyo aayahooda iyo noloshooda inta ka dhimanna dulligaas iyo daliilnimadaasi ay saarnaato ugu dambayn waxaan leeyahay soomaaliyey kaca soomaaliyey xumaha iska kor qaada waa 10 wiil iyo wax la mida waad ka hadli kartaan dawladda dadka ku jira waa ka hadli karaan culimadu waa ka hadli kartaa ganacsatadu waa ka hadli karaan way iska qaban karaan waxaan idin leeyahay shacabku ha kaco dhammaan ummadda soomaaliyeed oo meesha joogtaana ha kacaan xaqana ha u hiiliyaan
intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nooli kulante